إن شاء الله تعالى عاوز كده إن أنا كجوابنا ولا ألبا وحول ليه هاي مركز صور دوفي وحول حرق وحنتي بان شوقي مركز حاسب أي قرنا كدبنا وحول مركز ده بجبر دوفي سانو قرابنا هاي بل يقول حاس نماها كوكو حيس marka dad dhoof ka waa loo gaaloobay marka isku qoray ba waxa lagu yiri xaaskaagi ku qorneed meeday kaadhaki qorantiga lagu wada qoray ma qarin karo markaas wuxuu waxaan waan furay xaaska waan furay marka ma iga furmaysa ayaan daraway jawaabta ikhwaani iyadoo kooban waa ha ninka xaaska waa ka furanta nin tuur rasuul saxda saga yaqaan hadii aad ka gaadhaysana soo cashataada ku taal oo ciidadana ka bixin laakiin ma furanta ha waa furanta laba masalan ikhwaani inaan kala saarna ayaa fiican dadkuna waa isku qaldan labada mas'alo waxa weeye nin leeyahay xaaskaagi meeday nin leeyahay xaas ma leedahay oo dhimay malihi isagoo xaas la horeer qaba iyo nin lagu yiri xaaskaagi meeday oo yiri waan furay labadaba dadku waa sameeya qadiyada koobaad amba arinta hore oo ah nin reer la in la weydiyo reer maleed oo dhimay malihi mar badan waxa ku dhacay rag miyaradoonka soo moogday rag way soo yahay markuu shaqaasi tagay waxa laga yaabaa marka qaar ka haduu de wax sheegto cadaysto naam inuu wax ku waaya laga yaabo marka waxa laga yaabaa ma reer malihi qadiyada noocaas ikhwaani waa been weey asal ahaan waa been weey beentuna waxay ka mid tahay kabaa'irta dambiyada waaweyn waana arin qurux badan qofku naftiisa aanu barin laakiin hadii isagoo xaas la leeyahay xaas ma leeyahay uu maya amba waxa ku helan baa wax ku waaye xaasi kama furmin laakiin waa nin been ku dhacay waa nin kabiira ku dhacay haweenkuna kuma furmaan ereyga noocaas laakiin hadii la yiraahdo xaas ma leeyahay amba xaaskaaga meeday sida ninkan la yiri oo dadna uu yiraahdo waan furay wuxuu doonaba ha uga jeedo gabadh waa furmaysa kutubta fiqiga ee mu'tamadka ee culimada madaahibta islaamka oo dhan ay ictimaadaan kitaabka loo yaqaan muqniga ibn qudama mujalladka 7 safxada 306 waxa uu walaw qila lahu alaka mar'a hadii nin lagu yiraahdo xaas ma leedahay faqala la dabadna uu yiraahdo maya wa arada bihi al-kadhib u been uga jeedo inuu been sheego murhaba waxa uu lam yalzamhu shay'un ninka xukuma laazimay yani xaqa dalaaq waxba ka iman maaya oo haweeneyda ka furmi mayso wuxuuna da ku laazimaya ka dhalanaya maxay beentu dambiga ay lahayd wuxuu walaw qala qad dalaqtuha wa arada bihi al-kadhib lazimahu talaq haduu laakiin uu dhahdo waan furay isagoo been sheegaya muu furid xaaska waa qaba laakiin wuxuu waan furay isagoo been sheegaya waxa uu lazimahu talaq ka haweeneyda waa ka furmaysa ورسالة أي قبان علماء الإسلام كي واويني ورسالة نصوصه أي تلماميسو إذن خلاصته waxay tahay ninka la yiraahdo xaaskaaga mee ayri waan furay gabadhu waa ka furantay waxa laga reer badan isaa ku maqayn ikhwaani amba iyagoo furan oo waxa way aan isqabin si fiisa loo helo ama dhoof loo helo hadana ilaa maanta la wada joogo oo waxa way fiisihii lagu helay ujeedadu intaas oo ahayd laakiin laga yaabo ilaahay subhanahu wa ta'ala umada caafiye in wax badan iyo awlaad fara badan hadana ay soo aroortay laakiin khulaasadu waxa way ikhwaani siyaabaad kale hadii xeelad hadii laga maarmaan tahay siyaabaad kale u xeeladayso laakiin ereyga haweeneyda waan furay afka ka dhawr haday ka dhacdana weerad oga haweeneyda inay furantay marka rajciye iyo waxyaabad fara badan iyo wixii kale ku banaan weerad marka ku talaabsato